الله أحمد عيساني iyo programkii Wordka cashirkan qaadanaynay waa cashirkii 11aad oo ka hadlaya styleska farta iyo harka qaabka loo saarayo inkastoo harka hore soo aragnay styleska fartu marka hore waxa laga rabaa inaad har saarto documentiga aad rabto inaad wax ka bedesho markaad har saarto halkan styleska tagaysa groupkaas kadibna halka aad rabto ayaad ka dooranaysaa farti marka sidaas ayay isku bedelaysaa tusaale ahaan waxyaabo badan baa halka muuqda ishaas oo kale hadaad furto iyo badan bay xankaaga si muuqanayaan adigo tii aad markaas baahi ay ku hayso ayaad isticmaalaysaa haddii tusaale ahaan aan isticmaalo haddii aan tan isticmaalo oo normal ku qoran yahay waa kaas walishiida fartii waaweynayay boldhigu ka dhigay muuqaalkeeda sidaas oo ka dhigay haddaan rabno inaan wax ka bedelo waxaan tagaynaa isha yar oo haddaan rabno inaan ka qaadno styleka aan u samaynay halkan aan ku dhufanaynaa clear formatting kaas markaan ku dhufano sidaas kaga tagayaa marka space baa weli ku jira waad ujeedaa spaceka si aan uga saarno normalkaan tagaynaa normalka markaan tagno boldhiga haddaynaan rabin farta waaweyn halkaasaan ka qaadaynaa boldhigana waxaas intaas xiga sidee xag wax loo saaro halkaan hore aynu soo qaadanay qaabo badan baa loo saarayay inaan shortcut isticmaalo control plus a aan taabano sidoo kale inaan tagno selectiga kadibna aan taabano select all ay isku macno yihiin haddii aan rabno qayb kaliya inaan saaro ama qayb yar aan u baahanahay inaan har saaro oo qoran ka mid ah waxaan isticmaalaynaa mouseka isticmaalaynaa haddii laptop aad haysatana waxaad isticmaalaysaa laptopka labadan gees ee la isticmaalo ee right iyo left ah ayaa waxaad taabanaysaa leftiga markaad adoo nabaya baad isku dayaysaa inaad har saarto oo aad isticmaasho qaybta mouseka computerka oo ah ee la taabto si uu harkii kugu saaro cashirkeena 11aad intaas ayuu ku egyahay intaan cashirka dambe ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi